madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Ankara ee wadanka Turkiga ayaa maanta waxa uu booqasho ku tagay xarunta safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay wadanka Turkiga oo ku taala magaalada Ankara. madaxweynaha ayaa markii halkaasi uu gaaray waxa ku soo dhaweeyay danjiraha Soomaaliya u fadhiya wadanka Turkiga Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo diblomaasiyiinta safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Ankara. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu midnad u kormeeray xafiisyada kala duwan ee ku shaqeeyaan diblomaasiyiinta safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara si uu ugu kurgalo xaaladda ay ku sugan tahay iyo waliba qaabka ay u shaqeeyaan gaar ahaan adeegyada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed iyo waliba kordhinta xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ka dhaxeeya. madaxweynaha ayaa meelaha uu booqday waxa xafiis waliba warbixin ka siiyay howladeennada ka shaqeeya isagoo ku dhiirigeliyay inay si laabaan howlaha muhiimka ah ee u hayaan bulshada Soomaaliyeed waxaana howladeennadaasi kamid ahaa xafiis loogu talagalay isku xirka wasaaradda arrimaha dibadda xafiisyada kala duwan iyo guud ahaan safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay wadamada caalamka kaasi oo si casri ah u shaqeeya isla markaana qayb kamid ah laga furi doono magaalada Muqdisho halka systemka qaybtiisa kalena ay taalo magaalada Ankara ee wadanka Turkiga. أنا مقعد وحال هذا محمد الله أحمد وحايد الماسك في السفارة وحاطين لكي وفير سيكتري وحاطي كوردينيتر كاحي أنا ما أي تي بروجكت مدن مدحويني مدن وزير لتليه أمباسطور أنت اللي قد سايدين أنت مقدشو الشيء عندنا قلني وحان بسلو سوق قادني أنت وكي سفارة السبسين فريسكال دي هاي aan ka hormarino intii daadada Muqdisho ay dhisay karankarayna arrimaha bulshada oo maxaa lahaayay oo ay ku jirto arrimaha bixi mas'uuliyadda oo baahna iyo communication-ka ayaan karankarayna wixii kala weyti iyo yimaada arrimaha protocol-ka la gacanta ku hayna halkaasaan أنا شغال كاين. ما شاء الله. هذا هو فرحنا. هذا هو من مدة الصومالية. عارفين الصومالية. بان سفارة الوصول بالشرف ويدا. dadka ganacsatada ee qurba joogta ay dalkan joogo iyo kuwa dalkii hooy waxa kale oo qaabinayna mudane madaxweyne haduu la yiraahdo xafiiskan oo qaabinaya oo qorsheynaya bisha October sanadkan in la qabto shir weyn oo maalgashi ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta kadib waxa uu markii uu soo hadlaystay kormeerkiisa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kormeerkan uu ku bixiyay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara isagoo ku dhiirigeliyay in adeegyada muhiimka ah oo hayaan bulshada Soomaaliyeed ay si laabaan maadaama wadanka Turkiga uu yahay dal saaxiib dhow ah Soomaaliya wax badan la qabtay. maanta waxaan tagnay saakay safaaraddeena muxuu ahay Ankara ku taalay runtii safaarad aad iyo aad u qurux badan shaqaale Soomaaliya oo runtii aad iyo aad u habaysan una diyaar ah inay dalka runtii shaqo badan u qabtaan haddii ay tahay dhinaca safiirka qunsulka commercial attachega cultural attachega staffka oo dhan runtii IT-da wiilashu joogo oo runtii system casri ah oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo safaarado badan oo online oo dibadda ku isku xiraaya aad iyo aad shaqo fiican safaaradda runtii ka waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayaa dowladda Turkiga oo aad noo taageertay si aan safaaradda soo wanaagsan military attachega jooga aad iyo aad marka aan ugu faraxnay markaan aragnay muuqaalka safaaradda iyo shaqaalaheedaba. Bashir Khaliif Gani